shirka wadatashiga degmada Oodweyne oo maanta si rasmi ah uga furmay xarunta dawladda hoose ee degmada ayay ka soo qayb galeen gudoomiyaha gobolka taliyaha qaybta booliiska isuduwayaasha wasaaradaha waxbarashada iyo deegaanka xildhibaanada golaha deegaanka iyo waliba gudoomiyaasha in ka badan 40 tuulo oo kamid ah deegaanada gobolka waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay agaasimaha qorsheynta iyo horumarinta ee dawladda hoose Mustafa Faarax Awil isagoo halkaasi martidana ugu qaybiyay ajandaha lagaga doodi shirkan wadatashiga kuwaas oo ay ka mid ahaayeen dardargelinta cashuuraha tirakoobka hantida maguurtada nabadgelyada kor u qaadista waxbarashada ilaalinta deegaanka iyo dhuxusha duqa degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse oo isaguna furitaanka shirkan khudbad ka jeediyay ayaa si faahfaahsan uga waramay ahmiyadda uu shirkani leeyahay waa markii koowaad ay isku yeerano inagoo ah maamulhaan ka wada tashanayna aayaha mustaqbal tanta gobolka iyo dadka degmada Oodweyne haddii aan dakhli la helin ama cashuur la helin runtii horumar lama gaadho haddaba anagoo ka duulaynaa maskaxaha iyo awoodaha gudoomiyaasha magaalooyinka waxaan loo baahday in maskax iyo muruq la iskugu geeyo sidii fikir ku aadan horumarinta kor u qaadida adeegyada bulshada deegaankeena kor loogu qaadi lahaa waxaan rajaynaynaa oo aan dulucdaan ugu daadhacaynaa waa shir wada tashi maaha shir dhinac kaliya ka socda hay'ad kasta waxa laga doonayaa hal abuur shaqo hal abuur fikreed hal abuur horumarineed inuu maskaxdiisa iyo deegaanka xukumo uu ku matalo waxaan si halkan uga mahadnaqayaa gobolkeena mashaariic badan baa ka socota ay dawladdu ka wado xukuumaddu garwadeenka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biixi Cabdi haddii aynaan weel ama gundhig u samaysan hawlaha mashaariiceed ee deegaankeena ku soo wajahan iyo kuwa ka socdaba runtii waxay nagu dhaafayaan si habacsanaana oo markii koowaad ee aan runtii aynu aragno mashaariic 3 ama 5 ama 7 oo dawladda dhexe ka fulinayso isuduwayaasha wasaaradaha waxbarashada iyo deegaanka ayaa iyaguna halkaasi ka jeediyay kelmado ku taxalluqa wasaaradaha ay ka arrimiyaan marka waxa weeye caqabadaha maxaa laga gudbi karaa waxa laga gudbi karaa koow hortu iskaashi iyada oo la iska wada kaashado iyada oo ay gudoomiyaasha tuulooyinku ay nagala shaqeeyaan xagga waxbarashada waayo isagii baa tuuladii jooga waxa xukumaa 800 reer isaga xukuma 800 reer meesha degan waxa laga yaabaa inuu waliba siiyo deeqaha oo siiyo oo marka deeqda oo siinayo 800 qoys ugu xaadiraan hadii waxbarashadii ay noqoto ilaa iskuulkii leegana 40 qoys ayuu ka yimaado ilmo ka yimaadaan in la uu ku saleeyo heerku uu ku saleeyo uu raado waxaan bixinayo waxaan ku bixinaya dadka caruurta keeya iskuulada tabeeta waxa ay noqon lahayd iskuul walaal buuxsami laha waxa weeyaan waxaan ku boorinayaa tuuladu waxay xaq u leedahay marka hore in iyadu dhuxusha awood saarto mar labaadka wixii ka xoog roonaada in anaga nagu yeedho macna qayladoon marka ay nagu yeedho taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Daadmareer Gaashaanle Dhexe Axmed Cabdullaahi Cabdi iyo gudoomiyaha gobolka Daadmareer Axmed Diiriye Cabdullaahi oo ugu dambeyntii hadalka isaga daba maray ayaa dawladda hoose ee degmada Oodweyne ku amaanay qabanqaabada shirkan wada tashi iyagoo tilmaamay in loo baahan yahay in la joogteeyo shirarka noocaas ah waxaan maanta marka u horeysa u mahad celinaya kulaha deegaanka oo uu hogaaminayo maayirku qofku wuxuu qabtay waa la sheegaa intii aan ugu joogay faa'iidadii ugu weyneed oo maanta meesha ka muuqanaysa waayo waa markii hore soo nimaado aan meel soo nimaado nin dhibaahiisu ma noo yeeri jiray ugu tagsi meesha aan meeshiisa ugu tagi jiray laakiin waa markii hore la isu yimaado gobolka iyo degmada waxaan ka codsanayaa in arrinkan la sii joogteeyo faa'iido weyn baa inoogu jirta waxa maanta noo farxada inaan iskugu nimaano shir aynu kaga tashanayno horumarkii gobolka waxa halkan fadhiya 40 tuulo iyo in ka badan gobolku wuxuu ka kooban yahay dhowr iyo 60 tuulo haddii aan la idmo shirkan waynu joogteyn doonaa inta maqana shirkeena dambe haddii aan la idmo ayaynu iskugu iman doonaa waxaan halkan uga mahadnaqayaa maayarka degmada Oodweyne
iyo xildhibaanada golaha deegaanka oo isku duwan. Muuse Salebaan Maxamed, warbaahinta qaranka Somaliland, magaalada Oodweyn.